yiraahdo maaragtay hebelka cun daawad noocaas cun waxaas waxba ma tirayaan quraanka hadii aad akhrisato adkeeraha la socoto wax waliba kuma soo gaari doona hadii Ilaahay idmo gaaladan maaragtay ajaanibta waxay maaragtay soo burinayaan website ku soo qorayaan lacag ku qaadanayaan in gacmaha saabuun la iskaga dhaqo rasuulka sallallahu alayhi wasallam kun 400 sano kor ayuu sheegay in nadaafadu ay ku imaato maaragtay in la iska dhaqo gacmaha la iska nadiifiyo عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتو أن سلام من الباجوكتان سوال بو مقالكيga muuqaalkayga soo gaarayo halkan waa YouTube kula daljiin haday taa daawashadii kugu horeysay fadlan waxaan si xushmad leh walaaltinimo ay ku jirtaan kaaga codsanayaa inaad subscribe gareyso like gareyso videogana sii share gareyso wad ku maasantahay inta diyaad qabatay asxaabe maaragtay in badan kala maqanahay sidoo kale caaw waxaan go'aansaday inaan maaragtay video idin soo sameeyo ugu badnaan waxaan kala maqanahay almost 1 month video weligii ma aanan ka maqnaan waxaan maaragtay intuu soo fadhiiso videogan u soo duub waxay u kalifay fariin iga timid dhanka Instagram-ka oo aad i xanuujisay fariintaas inaan soo bandhigo mar rabo sidoo kale maaragtay inaan qofkaas sheego mar rabo magaciisa qof wuxuu ahaa qaaligu ah sidoo kale uu ila socday fariimihiisana aadan u qaristay in badan waa ka maqnaay baraha bulshada sababaha uga maqnaa waxaan idinkaga sheegi doonaa videogan waxaan nahay horta dhamaanteen team rageediyo idil students ama ardaydana maaragtaa hadii u badnaato video inay duubaan macquul ma noqonayso wax unna ka maqnaadaan waay hadii u badnaato kamarada maqnaanayso hadii u badnaato waqtiga la isku heli weeyaa oo waxbarasho dhankaas jirto waxa ugu fiican maaragtaa ardayga la weydiiyo mustaqbalkiisana waa waxbarashada inkastoo aan waxbarasho iyo maaragtaa ku kala mashquulnay qalabo kale oo inaga maqnaa fariintii aad soo dirtay waan akhriyay waan khirooday oo maaragtaa inaan hadana maaragtaa ka sii maqnaado YouTube-ka waan u cudur daartay oo waxaan iri in dad san ku jecel maaragtay fariimaha san ku soo diray kula socdo hadii jir maxaad ugu maqnaanaysaa oo maaragtay caajista aad ugu dilaysaa waxaan go'aansaday maanta inaan idin maaragtay idin ka raali galiyo qaladkii dhacay 1 month aan maqnaa at least 1 month hadii u badnaato hadii san ka yareenbo ma ka yaraa kartaa xitaa sidoo kale waa ogtiin muqdisho xaalkeeda ma sahlano iskooladii idil waa la fasaxay fasaxa sirka jaaniska sirka inaan maaragtay video badan idin ku sameeyaan rabaa hadii u badnaato 2 isbuuc ala fasaxay iyo wixii ka dambeeyo maaragtay amar dawladda ka soo baxay waa amarkaas hadii 2 isbuuc kadib maaragtay oo la furo meelaha alxamdulillah waa ilaahay naga badbaadiyo cudurka coronavirus inkastoo maaragtay Soomaalida ay aad u daciifsan tahay dhanka nadaafada fariin ahaan waxaan u diri lahaa ku dadaala nadaafada waxa ugu muhiimsan horta waa maaragtay qofka bini aadamka uu ku dadaalo waa inuu quraanka akhristo quraanka hadii aad akhrisato oo maaragtaa aad ilaahay ka magan gasho wax dhibaato ku imaanay ma leh asxaabay aad iyo aadan idinkaga mahad celinayaa sida fariinaha wacan aad igu soo dirtaan khaladka aan galay oo ah inaan 1 month in ka maqnaa waxaan idin ka raali gelinayaa caawo aniga oo salaan dheer idin soo marinayo meel walba joogtaan muqdisho xaalkeeda oo sahlaneen waxaan fursad u helay inaan 2 isbuuc oo fasax aan helo hadii u badnaato waa 2 isbuuc hadiisan ka yareenbo 2 isbuuc oo iskuulada la soo fasaxay waxaan go'aansaday inaan videoyaal soo sameeyo isbuuciiba hal video inaan soo galiyo maxaa yeelay imtixaan ayaa inagu soo dhaw imtixaankii ugu dambeeyay aan isleeyahay waxaan inagu soo dhaw imtixaan dawlad marka inaan maaragtaa dharkan u gashano oo aan u diyaar garowno imtixaankaas maaragtaa iskaga difaaci lahayn oo mustaqbalkeena aan meel u saaranayn ayaan u diyaar garownaa inaan video soo galino macquul ma ahan marka hadii u badnaato isbuuci hal video waa idin ogolnaa oo waan soo dhigi karnaa anagoo mashquulkeena iyo maaragtaa fariimihiin akhrinayno mar waliba waxaan soo fiiriyaa commentiyadiina quruxda badan ay niyad ku dugsadaan fariintaas waxay ku saabsaneed hadii aan maaragtaa idin faaloodo waxay ahayd YouTube-ka ma ka tagtay camal arrintaas camal ahayd marka macquul kula tahay in aan YouTube kala tagayo hadii aan runta idin sheego horta aan YouTube inaan sameysto qof igu dhiirigeliyo ma lahan qof maaragtaa maanta oo maaragtaa aan dhigi karo hebel waa qofkii yiri YouTube furo maaha kaliya ana go'aansaday oo furtay YouTube deetana maaragtaa inaan magac sameeyo u soo jeestay saaxiib aad baan kaaga mahad celinayaa sida wacan aad waqti ugu soo bixisay oo aad fariinta ugu soo dirtay maxaa yeelay qofka bini aadanka waqti haduu ku siiyo waa inaad u mahad celisaa wax waliba timir haday tahay waa maaragtaa wax kaaga timaad walaalka qaaliga hambali inaad dhahdo waa hambaliyan lama yareysto wax waliba waxay noqon karaan abaalmarin
marka waxaan ku leeyahay waqtiga aad ii soo bixisay oo aad fariinta ku soo bixisay aad ii soo qortay waan kaaga mahadcelinayaa waxaan rabaa oo kale inaan inta ka sheego dhalinyarada Soomaaliyeed aan ugu baaqayaa youtuber walba oo ah ajnabi dalkiisa uu baaqaa wuxuu uga baaqayaa cudurka coronavirus siyaabaha uu ku imaan karo maaragtaa dhamaantii waa la socotiin social media oo wuxuu ku imaan karaa leeyahay hargabka iyo waxyaabaha saas oo kale inaad waxaas niyada gelisa ma ahanbo waa inaad ka fikirtaa mustaqbalkaaga oo aad maaragtaa subaxii quraan aad akhrisataa ilaahay aad ka magan gashaa haddii lagu yiraahdo maaragtaa hebelka cun daawo noocaas cun waxaas waxba ma ay tarayaan quraanka haddii aad akhrisato adkaaraha aad la socoto wax waliba kuma soo gaari doona haddii ilaahay idmo waa haddii aad ilaahay tala saarato waxa lagu leeyahay waxa waaye gacmahaaga nadiifi gaaladan maaragtaa ajaanibta waxay maaragtaa soo buurinayaan website-yada ku soo qorayaan lacag ku qaadanayaan in gacmaha saabuun la iskaga dhaqo rasuulka sallallahu alayhi wasallam 1400 sano ka hor ayuu sheegay in nadaafadu ay ka imaato maaragtaa in la iska dhaqo gacmaha la iska nadiifiyo gacmaha gadaal iyo wax in la iska dhaqo marka hadday soo baraarugeen waxay dareemeen in coronavirus uu sababo nadaafad xumada coronavirus waxyaabahaas waxa kamid ah macsido badato aakhir zamaan joognaa waxaan idinka tagayaa sidaas nabadgeliyo asxaabteeday coronavirus waxaan isku soo koobi kara maaha waa macsido badatay aakhir zamaanku soo dhawaaday kaliya ma dhihi karno anaga maaragtay coronavirus waxa sababo nadaafad xumida inaad ku dadaashiin quraanka axaadiista aad akhrisataan ducooyinka laga hortagana aad maaragtaa aad akhrisataan قال وحو جرائد كسو قرن آذن راعن وحان نتكيغ مهد علينا يا سيدو عناد فيديو قد داوتن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.